muddo laga joogo adiga 5 sano aabahayga ma uusan ila hadlin sababtoo ah wuxuu igu yiri haddii aad Yurub aadid oo kaleeto weligay ma kula hadli dooni marka waa isku day inaan mar badan xiriiriyo oo waa uu diiday inuu ila hadlo marka aniga dambi ma iga soo gaarayo intaas murugo inay kugu hayso wey aabahan waxaan leenahay raxmad gabadhaada raxmo u fiir gabadhaadinka gaf waa ka dhaca kullu bani aadam khata wa khayru khataa'ina tawaabuun nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhaada inaad 5 sano la hadlin wax sahlan maaha adigina inaad 5 sano marba soo xasuusto dimcan aabaha ku xanaaqsan dembiga ku jirtaa aabaha ku xanaaqsan dembi weyna ku jirtaa saas daa ku dhimatin qatara ku sugantahay marka wada kasta umar aabaha raal garay lahayd wada kasta ilaahu inaad Yurub ka naqatid naqato u tagtid aabaha aad tiraahid aabu raali ka ah waxa sameeyay gafki raaha laakiin inaad rid aabaha inuu ku soo hooydo adiga waa rid aabaha ama hooyada ay ku soo hooyto Yurub waxyaabaha dhibaatada taan warnaartaada iyo jannada waalidkaaga وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان marka ilaahay ku amray maaha asaga xumaantiisa xataa haduu gardaniya xataa haduu gaal yahay aabaha ina xiriiriso iska dhaafe haduu muslim asoo gaal ah ma dhigi karta aabay gaal ah ku goyna wax la isku gooyo wax ugu fiican diin way ikhtilaafu diin la isku ma dhaxlo qofka hadii wiil iyo aabo aan isku diin ahayn isma dhaxlayaan laakiin haddana xiriirka adduunka saaxiibuhu fi dunya lillah waxa la adduunka inuu ku saaxiibs marka qatara ku sugan tahay gabar yahay aabaha ha seexanin adigoo raali garaynin wax kasto adduunka wax kasta ku kalifto waana waalidka raga hadda ku dhimatay saasne naartaada banaanka ay taal wal ciyaadu billaah ilaahay waxaan ka bariyay ina ku dhimin saas maadaama su'aal soo weydiis maanta wax fiican way ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigaaga ha jalciyo waalidka raadka waalidna waxba u dhalay aduu ka raba kaliya ina babaridid maahane marka ugu dambeeyo ku cafina waalidka ma laakiin marka aad is weynisiisid aad tira ka dheeraatid qalbigaaga qaasi uu noqonaya markay diinta soo galaan nimanka ilaaha barakeeye qasab miya in la gudaa guditaanka نعم بارك الله فيك نعم مسألة قتانك شرط ما قتانك إن شرط ما إن وح ونكسن إن برس علماء حتى واجب كذلك مدة سنين كدو دافو وضرر كإيمانا يوقف كديلو جودو ودباتو كل عيسى حلي حتى يلو لكن عذر إيو نظافة إيو ونكسن يهاي يعافمات با إن لس جودو هدي ما دام دقاتيرت هاد هور مرتي وقف وين حتى يلو جودو كرو واجه رفق هذا qofka markuu weynaado waa aragta hadii lagu gudo waxa laga yaabaa xidid in la gooyo oo dhibka way ka ratema walaalku waxay dhihi jireen daadaas doo gaar lama gooynayo lama gudayo qofka dhihi jireen laakiin hadda suuxis iyo waxba yimid adigu caafimaadka ku jira ninka caafimaadkiisa ku xaaskayga weysada ma iga jabisaa aniga waxaan rajaxiyaa inay ka jabinayso nacam halo ha ay sheekh halo waa ku maqlaay sheekh waxaan rabay su'aal inaan ku weydiiyo haye tan koowaad oo diiniya haye waxaa waay hadda micni soonka hadda la soo dhaafo kale daawo ay socotay cunayay marka dhaqaatiirta waxay dhaheen daawo waxay ahayd marka jirada dhanka TB marka muhiimadeed in aan cuno daawada iyo raashin marka soonka hadda ma soomin marka hadda maxaa sameeyaa soonkii daawada ma ku dhamaatay hadda waxyaabo sadaqa dhibo maya daawada ma ku dhamaatay daawada waa hadda waa ii dhamaatay hadda waa ii dhamaatay hadda soo qaleynaysaa wax dembi ma lihid si aad awoodid isniin iyo khamiis iyo si aad awood soo qalay insha Allah wax laga waxa bixinaysa ma jiro qalale laga raba bis okay tan kalena waxa waaye meel oo waxa jooga oo South Africa loo marka masaajid ma dhow shanta salaadne khudbado kale masaajid kuma dugado salaad inta u badan oo ku dugado dukaanka marka wax dimbi ma iga soo gaarayo naam salaadaha kale aan dukano kale ma salaadaha kale oo ku tuugi kartaa hadii masaajid ku dhaweyn gurigaaga meesha awoodda ku tuugi kartaa laakiin jimcaha ku dadaal inay 3 jimca 2 jimca iska gaarin حتى بيحي كرت الجبح هذه لكن أول سيدي إذا وكان عيسى وعين قنيسة أنا دور كاجتكوت إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. ننعك لالو. شيخ سؤال غبا. تنكوت هاي محيطة سواش. وحاوي أنت ماشي مريكن كا ناقها وحليهن مركا ضحو وضحية ناكلان صوب سنة يا مركو حلا عني فور مركا إلهي سبحانه وتعالى ضد مسلمين ما كهلا يسا مصدد قالك هلا يسا أخي ومسلم واي مسلم عني فور إلى وح إلهي حلالي من الحرامين كرا إلهي أبو قرآن كوش يجي إنه مثلا وصلات ورباع على مركا وح إلهي حلال ها معنا نينكا لها ميا ناقاس وقرسنا مركاسي حناقيسا ما ها نينكا intaan sanuu qabay marka qofku duruufku wax waa dhici karaa marka wuxuu rabaa in naagta isku soo guursado asaga intaan sanuu qabay 10 sanuu qabay marka
marka waxay leedahay adaad qof kale soo guursato bes waay. waa fahmay waa garta su-aashaas waa fahmay okay dhinaca kale. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا غسولي مقعي وعدها عدو قادر haye qofkaas waa ka go-aan fila dhinaca kale. halo qofkaasna waxaan filayaa telefonku dhegeysanaya dhinaca kale. halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وصولي وحرب السؤال أنا كويتي هاي. واحد على صوماليا جوجا مقدش. waa garta qofkaas waa ka go-an asagana dhinaca kale. halo 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله وبركاته. يا غسول مقعي وعدها عبد القادر أو جو وسط أفريقيا waa garta وحارب أنا كويتي سؤال haye سؤال أراك قف كستو مانتا أو مسلمة وباهية إن لو جواب سؤال شاس أو إلهي سبحانه وتعالى القرآن كله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صح. يعني قف كستو دون أيو آخره إيو رجل إلهي إنه أركي جنة إنه هلو وحا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبيه وحا أسوة كديشة نعم. إلهي دي. نعم marka maanta ii sheegay qarnigan ama zamankan aan noolnahay waxaa jiro ii sheegay waxaa soo baxay qof waliba ko suufi la yiraahdo ko qaadari ko kale oo ataxaad iyo salafi iyo waxaana soo baxeen marka anagoo rabno inaan nolosheena aan ku dabaqno tii nabiga sallallahu alayhi wasallam marka nabiga ataxaad mu ahaa suufi mu ahaa turaab mu ahaa hada hoos soo dego adigina maanta oo Soomaalida qof kasta muslim oo ku eeganayo adiga intee ka mid tahay marka jazakallah. نعم waa su-aashaas waa fahmay dhinaca kale. halo halo dhinaca kale. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekh waxaan joogaa Canada su'aal baan rabay inaan ku weydiiyo subaxdii aroortii salaad subax ayaan xaafadda ka soo tagaa shaqada markaan ku jiro kabihii iyo buudkii iskama siibi karo weysada sigsaanta ma kor marsan karaa inta gacmaha intaan dhaqo. طيب waa fahmay su-aashaada insha allah dhinaca kale. thank you. halo qofkaas waa ka go-an filaya marka su-aashaas walaalka hore wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi gabdhaha tacadudkay kasoo horjeedaan oo waxay ku leedahay haddaan xaasoo guursanaysa ana waa ay furaysaa ma banaan arrinta xaqiiqatan tacadudka horta waajib maaha ninkii awoodo oo cadaalad samayn kara loo falay nin kasta ma awoodo tacadudka xaas badan oo guursado nin kasta ma awoodo ninkii laakiin awood siiya ama ninkii duruuf u keenayso oo islaanta aan dhalaynin ama aan xamili karin ama waxaasoo kale markay jirto ayaa asaga qofku wax loo baneeyey waaya qofka hadduu dhaafo ma dimbaabaya hadduu yidhaaho islaanteyda iska ag fadhina aniga dembi mu ku dhacayo laakiin wax u banaan wey sidii qofka lahayo inuu seexdo waqtigoo rabo iyo inuu waqtigoo rabo wax cuno wax u banaan wey laakiin gabdhaha midaan lagaga digaya waxaa lanaga digayaa idinka ilaahay wuxuu baneeyey cagsi ha ku naqanina furiin horaa ka dalbanin dhowr jeerna gabdhaha waan u sheegay ninkaa markuu awoodin oo xaquuqda kasoo bixi karin markaas furiin dalba xaqaa u leedahay maxaa yeele xuquuqda adaa waysay laakiin kibir inaad tiraahdo anigoo hebel ee maale la guursan karaa maalinka ila guursato hadda waa furay haddaad tiraahid waa dembaabaysaa xataa usoo guursanin ayaa waxaa kasoo hor timid waxa ilaahay baneeyey marka ku wanaagsano inaad tiraha waxaa la guurso hadduu guursaga haddaa awoodida guurso laakiin maalinku xaqa kasoo bixi waayo adigoo dembaabina furiin dalba kartaa markaa dhigi kartaa niyow xaqayga ima siisid laakiin masruufka iyo kii gogoshi iyo kii marashada ima siin kartid laba dhaxaasna ninkana inuu ninka isku wadi karinna ilahay qur-aanka waa u sheegay fain khiftum an laa tacdilu fa waaxida waxaa war ninka cadaalad samayn karinow intaad naarta adoo qaloocan geli lahayd halkaaga iskaaga joog nacam taas marka waa gabdhaha waxyaabaha oo reer galbeedka laga dhaxla weeye inay mabda ahaan ay uga hor timaadba arrinta mabda ahaan ayaa looga hor imaanin insha allah midda kale walaalkii su-aal wuxuu weydiiyey akhiyow islaamkana kaafiyo xarakaadkan waxay ahaayeen wasiile ahaayeen oo la rabay in diinta lagu gaarayo diinta lagu fidinayo ahayd xaraka kasta magacii rabtaa la baxdo hadafkeeda wuxuu ahaa
inay dadka diinta ay jeclaysiiso ama jidka ay ku hagtay ahayd. laakiin markaan dambe xuduud nafsiga gashay oo ah dadka inay isdagaaleen, xarado kale tan kale inay ka fiican tahay, iyada inay naaji tahay, taas ayaa soo dhex gashay. islaam ayaana kaafiyo. adiga hataa haddaan aniga muslim ahay, marka ha isku mashquulin. xataa haddii sheekh ku yidhi hebel kooxdaas ka tirsanay, waxay ku dhibaysa male laa diintaada, ha ku jeclaan hana ku nacaan. albuqdu lillahi iyo waxaa la rabaa alxubu lillahi. qofka haddaa jeclaanaysa ilahay dartiisa u jeclo, xaraka heblaha daraaddeed ha u jeclaanin. haddaa nacaysidna ilahay dartiisa ganfi oo galay ku nac, xarakadoo rab ha ka tirsanaado, taas ayaa ku kaafiso. ama wasiilkan qolaad diidaysa u dhehaysa xarakaba yaa la gelin ile wasaa'il wey. waa hadda xisbiyada iyo wax kastoo ah iyo jamciyaadka iyo qolooyinka hataa sholokada galayan lacagta ay u aruursadaan. tacaawun cala albiri waa banaanta wataqwa wixii dhib ma keenayso. laakiin marka laga dhigo tayda keliya maahna tan kale waa qaldan tahay, meeshaasay aafada ka timid. xataa dadka diidaayo asbaabtaas daraaddeed ay u diidayeen, ay dhahayaan waxaan ummadda ee lagu kala geyn. asalka laakiin waxaana kaafiyo waman axsana qawlan miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin. taasaa ku kaafisa insha allah. wiilka kale ee kanada wuxuu leeyahy asagana nacam masxal cala aljoor waa banaan tahay. waxaa shardiga marka hore aad intaad sigsaanta a xeranin inaad aad weysaqaad caadi weyse qaadato guriga markaa ka baxaysid. hadhow marka ama kaadi ama suuligal marka dambe kor ayaa ka weyse qaadanaysaa. lugahan waa masixi kartaa sigsaanta oo ilaa 70 masxul qufeynka laga soo wariyey. qolada fuqahada dhahaysa qiyaaska la aadane waxay u shardiyeen sigsaanta inay ahaado midka kan oo aan naqanin, mid oo aad jeclaan kuwa khafiifka oo lugaha laga dhaxarkaya inay ahaanin. sigsaan fiican hadday yihiin waa masixisa insha allah. qadka telefoonka halow. halo, assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekh usal ilaahi ku barakeeyo. بارك الله فيك. aad baan ugu xirnahay barnaamijyadaada. جزاك الله خير. waa hawl fiican oo culimo badan iyo rag badan ay ka gaabiyeen baa adigu usoo banbaxday inaad baahi diineedu jirtay aad ka jawaabto. marka ilaahay waa kugu ducaynaynaa mar kasta. جزاك الله خير أخي أمين. marka su-aal baan rabay inaan ku weydiiyo. gabar baa tiri sheekha ii weydii. marka wiil waxaa jira gabar qabay. marka wiil buu ka dhalay, kadib way isfahmi waayeen. ilaa 6 bilood 7 biloodba gabadhii waxay ku maqneed gabdho walaalaheeda. ninkii kama daba imaanin. wax mataqaanaa gabar baa iga maqan iyo midna muusan dhihin. markii dambe waxay tiri intaanba haddii aad iga maqneedoo waxba aysan naga dhexaynin, marka waxaan rabaa inaan kala tagno. waa gartay. isagana wuu wareejinayaa, wuxuu leeyahay maya aniga waa ku jeclahay, inkastoo cara ku maqneed haddana waa ku jeclahay. waxay tiri marka cara aan ku maqnaado, laakiin 6 bilood 7 bilood baa lasii marayay. intaas marka dadkii ayada mas-uulka ahaa bay u sheegtay. ninkii ayagii buu la hadlay, dadkii u sheegtay oo ayada mas-uulka ahaa ninkii bay la hadleen. marka ninka wuxuu leeyahay gabadha waa jeclahay, waa xalisanay. marka muddaa loo qabtay dhowr jeer ilaa 2 asbuuc 3 asbuuc. waxaa la yidhi soo xaliso oo 3 asbuuc markay dhammaato gabadhii heshiis tihiin mataqaanaa nala soo hadla ama gabadhii dee iska fasax haddii ay isfahmeen. marka asiga ilaa hadda ninka waa wareejinayaa gabadhii. maxay tahay marka? su-aasha waxay tahay ninkaasoo kale oo gabadhina waxay leedahay ninkaan ma rabo, hamiin ma rabo, maalina ma rabo. dadka ayada ehelkeeda ahaana markii ninkii la yidhi gabadhi furna wuu wareejinayaa. marka sidee shareecadu marka maxay ka qabtaa in ninka gabadha laga fasaxo? طيب waa fahmay, waa gartay. dhinac kale waa fahmay, taas waa fahmay. dhegeysta ku jawaab doona insha allah. dhinaca kale halow. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سؤال أنا كويديو. سؤال كويد هو هذا كور مسويرة كهذا الشيء لصعدة ما كخطا. معك هذا؟ مسويرة بقول لسرناي. هاي. مرك مكوف بحواي إسلام ولكن مريكان مسويرة وهيجر جروب إياه ولكن ودت هنن مسويرة الحيوان إياه waxaas kuma sawirna darbiga iyo suran iyo kuwa kaleentan oo qorqoran geedka laga sameeyo zimaroodiga oo kaleento geed la qorqor ah laga sameeyey kuwaas oo kale dee guriga yaalan ma xaraam baay. okay baarak allah fiik. waa faham su-aasha tan kale. su-aasha kale waxa waaye zakaatul maal ku xisaabsan tahay ayadana. zakaatul maalka qofka hadda bisha zaka waa lasoo dhaafiyay tiri, laakiin way haysay wayna dhiibi kartay. qof ay u niyeysatay oo maskiina inay siiso oon mudnaa oon yiri ihaay wax baan ku samaysanaa. haddii saas oo kale loogu haayo zakaatul maalka arrintaas see waa ayadan. طيب waa faham saas insha allah. insha allah. dhinaca kale low.
halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aadan kugu mahadcelinaa sheekayga. waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su-aalood. tan koowaad waxa waaye soonka waxaa iga tagay maalmahaas, maadaama haddaan dib u soomo oo ciladay iga tageen xanuun anoo xanuunsan, maalmaha iga dhimanaaday haddii aan dib u soomo ma noqon karaan maxay ahayd ajrina maxay soon muuniyeysan karaa sunno ah, faradkina ma iga baxa oo ligu lahaa. su-aasha labaadan ku weydiinayo waxa waaye oo si fiican noogu bayaanaysa aan jeclaan lahaa, xaaskayga weysada ma iga jabisaa? طيب وافهم تاس waa mahadsantahay. dhinaca kale lagu waa mahadsantahay. dhinaca kale lagu halo ها halo sheekh dulmiya ها sheekh baan ku salaamay assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekho waxaan kaa soo wacaa maraykanka bas laba su-aal ayaan qabaa. magacayga haddaan ku sheego cumar axmed kheyro waaye. su-aasha koowaad waxay tahay waa ujeedaa barnaamijka maanta aad ka hadlaysid waxaa waaye soomaaliya waxaa ka taagan waa khilaafaad iyo waxaas. su-aasheeda waxay tahay ka sheekh ahaan adiga iyo dadka kula mid ah waxaa is haysta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, adig aragtidaadu sayta yaa khaldan, ma madaxweynaha khaldan mise ra-iisul wasaaraha? ko tan kale waxaa jira barnaamijka idaacadaha ka baho sida kalamaan la yidhaahdo. kalamaan hadalladooda dhan waxaa waye waxaa la yidhi waxaas waxay u eg tahay xan. kaas in la dhegaysto sheekh ma banaan tahay? wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سؤالنا كجواب مركه هore walaalka kood wuxuu leeyahay mas'ala dacwo sheegay, wuxuu yiri ninkii ay kan iyada caray ku baxday 6 bilood asagna ma raadinin ifur itiri xaqiiqatan asagna wuxuu leeyahay waan ku jeclahay. marka waan ku jeclahay ficil ay u baahan tahay ma qowl uma baahna. maanta qof aad dulminaysa daadhiis waan ku jeclahay wax soconaya ma laha. marka gabadhaas waxaan leeyahay quraanka sida uu sheegay ehelkeeda fabcathu hakaman min ahli, labada ahl inay fariistaan way xaqa ay sooraan ay gabadha ninka hadduu ka gardarayaan ay ka furaan ay ka fasaqaan, hadday gardaran tahayna in la qabto. marka intaan qaaliga la geynin marka hore ninkii inuu la hadla ehelka ay la hadlaan maaha, waa ehelkiisna ay la hadlaan ay yidhaahin ninkii gabadhii wuu dayacay ama khilaafii soo sheegatay in la dhex galo. hadday rabaan inay sulxi ka sameeyaanna ilahay qur-aanka soo noogu sheega waa uu hagaajinaya. ama fasaqa ma dalban kartaa, taas waxay ku xirantahay qaaliya sheegi kara inay fasaqa xaq u leedahay. maxaa yeelay hadda iyada waxay leedahay waa cara ku maqneed, ninka asaga ma raacdaynin. marka arrintaas waxay fiican tahay in qaadiga loo bandhigo insha allah, xukunka soo u sheego, macnaha fatwo kaliya waxay u taraysa malaha. gabadha kale maraykanka iyadana waxay tiri sawirka la sawiranayo, sawirka nacam sawirka in la weyneey maaha, taswiirka khaasatan qaarka oo wixii naf ku abuurma naf lehba in la suro maaha. waxay sheegtay xayawaan ay tiri, xayawaanka hadduu qoorta ka go-an yahay dhib ma laha. oo sidii nabigu alayhi salatu wasalaam daahi caaisha oo ka jaray madaxa laga gooyey, sidii hadda sanamadan oo dharka la suro kale waa qof waaye laakiin madax ma laha, waxaasoo kale dhib ma laha. laakiin qofkii kaamil adeed tahay dhibkeeda leedahay. tan kalena waa kasii daran tahay xoolaha geela la qoraayo tamaathiil waaba kuwaas. walidaalika suurada oo khilaaf kama taagno inay tamaathiishaas ay xaaraan tahay, waxaa la isku haystaa keliya kan oo fotograafiyada khilaaf ka taagan yahay, laakiin kan khilaaf kama taagno oo ah waxyaabaha geela la qoray iyo fardaha la qoray iyo in la sura maaha oo ma banaano. soomaalida farshaxan iyo waxbay ku sheegaan, laakiin waxaas qolka guriga lama dhigto insha allah. sakada kale sakaatumaalka gabadha inay bixiso wey. sakaatumaalka dib looma dhigi karo waqtigee xoolku ku go-o nisaabkan hadduu gaaro qofka mil kitaabna uu ku hayo shuruudahaas hadday kaamil noqoto waxa gabadhi qofkii ama rag iyo dumar ha ahaadeen oo sakada bixiyo wey. waxay u niyeysatay inaa qof u celiy maya, qof ma u niyeysan karta, qofkaya siinaysaa. hadduu qofka yahay hata qof faqiir maba aha, qof yiri lacagta yahay macnaha waa ka maarmaa, waa asal laftigiisa hadhow sakaaba ku baxaysaba. mar qof dhahay lacagta yahay hadhow wax ku samaysana may dad masaakiin jira ka owleysan kuwaas si maxaa yeele ninkan waaba ka maarmaa. sakadana si asalkeeda maxaa adi lagugu waajibiyey, waxaa lagu waajibiyey sanad waxaa lagu fiirinaya inaa ka maarantid. haddii sanad ka soo wareegi macnaheed waxa waaye maalkan waa ka maarantaa, saasaa la yidhi marka xaqa maskiinka ka bixi. qofkan nafsa shay uu leeyahay, qof maskiinaa siisa wuxuu ku yidhi ii celi, soo u celinaya hadda waa inuu xiisa qaataa. maxaa yeelay naftaan la iskuma halagan karo haddii baahi jirto, haddii baahi jirin oo ka maarmane maskiinka laaba la siinaya, asaga lama siinayo. wiilka walaalka wuxuu leeyahay asagana soon ayaa qalli igu jiray. nacam soonka qallada waa bixin kartaa maadaama cudur sharci kaaga tegey oo xanuun kaaga tegey, wax qalale lagaa rabaa. oo faman kaana minkum mariidan oo calaa safar fa ciddatu min ayaamin ukhra wey. oo maadaama uu mariid ahayd cudur uu jiray, laakiin waana ku bixin kartaa. waxaa shardi laakiin soonka sunnada ah
inaan niyeysanin oo qalla u niyeysatid maxaa yeele qallada awla ah waajib ku saaran wey waajibka ku saaranna inaan sunno niyeysatid maaha qalla u niyeysanaysaa markaas maalinta isniintoo kale ayaa waxaad niyeysanaysaa soonka qallada ah oo cudurka kaaga tagay inaad guddida u niyeysanaysaa ama habeenka khamiista ahayd ama habeenka isniinta ahayd kadibna sunnadanaad waa leedahay ajirkeedii qaladana waa kaa gudmaysaa insha allah masalada kale khilaaf weynaa ka taagan dhowr jeerna waan sheegnay hadduu cajalooyinka youtubeka u laabto waa fiicnaan lahayd aan ku tafsiilin arrintaa masalada ah weysada makaa jibisaa xaaskaaga nacam khilaafa ka taagan culammada waan sheegnay 3 ayaa asal u ah 2 daraf iyo 1 wasadka ah waxaana 2 darafka ahna saxsan kan wasadka waa laga saxsan yahay saas daraaddeed aniga waxaan rajixiyaa inay kaa jibinayso nacam soomaaliya waa madhabka shaaficiga ay curf ahaan u qaateen qowlka imaam shaafici ama cumar ibn khataab qabana qowl daciifa ma aha axaadiista kale oo dhahayso nabiga xaaskiisu dhunkooday iyo habeenkii taabtay iyo waxaas dhanna cilad iyo waxaa loo yeelay iyo ixtimaalkooda laga jawaabay marka waajibisaa qofka xaaskaaga weysada waa kaa jibisa khaasatan mar haddaad fooda masaxaysid sida soomaalida shaaficinta u isqaadanaysid inaad madhabkaas wada haysatida kuu fiican oo weysada waa kaa jibisa qolkaasaa rajixiya aniga su-aasha kale wuxuu leeyahay walaalka maraykan ka soo hadlay akhiyow xaqa waxaa qof ma raaco dadka waxyaabaha naga qalda waxaa kamid ah hebela xaqa hebela waxaa laga yaabaa labadooda dhinacna xaq inuu kan ka leeyahay xaqa waa qaybsami karaa kana dhinacnu xaqa ka hasta kana dhinacnu xaqa ka hasta laga yaabaa walidaalika waxay isku haystaa mas'alo diini maaha waa dastuur ay iga samaysteen ee isku hayaan anaga laakiin waxaan tanna qusayso adiga marka mushkiladu waxaa waaye maba dadka in la heshiisiyo waa wax la yaqaan wey sharcigaa qabo sulxu wa sulxu khayr in la heshiisiyo waa la garta in aad tiraahid xaqan hebel la jira waa sax laakiin xaqa saasa inaad tira xaqa ina cayintid waa wanaagsan tahay laakiin hadda waxay isku haastaan waa dastuur ay iga dhigteen wey diin islaam ay isku haastaan mas diin arrin diin bay isku haastaan culamo u baahan maya walidaalika waa la yaabaa dadka ducaadka oo arrintan dhahayo hebela gardaran kana qaladaadkiisa waan ujeednaa kana qalad waa lahaan karaa bini aadan macsuum ah marka inaad adigana waxaa wanaagsan ina markaa canu kale ah saliim ka naqataa oo aad tiraahd xaqa anigasa u bayaaninaya hadda aniga xaqaan sheegaa hebel lama sheega dadaa igu wareeray dada waxay leeyihin mucaaradaa tahay kuwa kale waxay igu haastaan maya waxaa tahay xaqa markaa sheegaya saasay dadku u wareerayan laakiin markaa rabtid inaad meel qalbigaaga u jeerjeeco waa mushkili wa xataa dadka maku aaminayan waxaa sheegaysa ma aaminayan maxaa yeelay qalbigaaga meel u jeerjeeco marka ha isku mashquulin aniga ah aniga xaqaa taageersanahay waxaan taageersanahay waddankaas inay nabad ka dhacdo waddanka hal qof waa ka wen yahay kan meesha haayo haddii ummadda daayacmaysa inuu ka degaa asal ah kan ku haasto haddii ummadda daayacmaysa inuu ka tanaasulo xaq ah laakiin maanta dhan asaas sax ninkaas ha joog wax dhahay mala maslaxadda ummadda ay ka weyn labada qof is haysata insha allah haddaa rati ra'yigayga kaas wey insha allah dhinaca kale halow assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan kaa soo wacayaa maraykanka marka 2 su-aalo iska agdhowaa aan rabo inaan ku weydiiyo tan koowaad waxa waaye meesha aan joogno dadka qaar gurigii waxay ka qaateen bangiga marka qaab oo ribayna ku qaateen markaan weydiiyey aniga hadda waxaan rabay inaan guri qaato marka waxay igu dhaheen dembi ma aha oo maxaa yeelay waa iska boobsiinay in shan sano gudahoodaan ku bixinay 5 sano unbaa ribada ay na fuushay marka taas diinta maxay ka qabtaa waa ko midda labaadna waxa waaye dad oo bangi oo islaamisa soo baxay oo dhahayo gurigan anagaa ku iibinayno adiga lacag qeyb baa bixinaysaa tusaale ahaan 200 ama 100 ayaga ay bixinayaan gurigu intuu yahay hadduu 100 yahay 100ka 80 ay bixinayaan adiga 20 baa bixinaysaa marka kira ahaana haddana adiga guriga aa kusii degaysaa qaybtii lacagta adi lagaa qaado kirada lagaa qaado share percentage ayaga qaadanayaan ilaa lacagta aa ka dhamaysid taasna waxay diinta ka qabtaa lacagta oo shaarka marka oo aad kirada ahaan lagaa qaadanayo 20%ga aa sheegtay ma laga jaraa mase waa ka bannaan tahay 20%ga adigay ku haraysayo lacagtaada 20kii adi lagaa qaaday kugu darsamaysaa wixii aa ka heshid maya boqolkii waxaa tiri 80 igaa baxaan 20 adaa bixinay soo ma guriga adi 20ka ani aan qaadanaya ayagana 80ka wixii ugu soo aaday qaadanayaan kiradan anaa bixinayo macnaha adigi 20 haddana kira asii kor saaraysaa 100 waa guri tusaale ahaan 80 kun ayagaa bixiyey adna 20 bixisay guriga ayagaa gadaayo
haye kabacdi marka adaa kira ahaanaa ku degay maalan kunaa ama 800 kira ahaan aa bixisay ayaga waxay qaadanayaan marka 80% ayagaa qaadanaya adina 20% yaa lacagtaada kaa go-aansan aa kugu darsamayso waa gartay waa marka gartay ilaa lacagta ay ka dhamaato waa gartaa marka taasna maxay ka qabtaa diinta labadaas su-aal aan rabay طيب ان شاء الله dhinaca kale halow الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ المقرئ ها waxaa rabaa inaan su-aal ku weydiiyo oo ku saabsan yani daraasaadka oo ku saabsan military oo ciidankiina oo koobarto daraasaadka marka military yani waxaa rabaa inaan barto insha allah duulidii ma rabaa inaan barto pilotka ha marka wadankana joogo Yurub baa marka laba fursad ii banaan hadda oo hortaalo tan koowaad waxaa waaye in oo lacagta ani oo iska bixiyo oo jeebka ka baxsho lacagta lacagta loo bara lacagta inaa jeebka oo ka baxsho lacagta lacag badan waa $1,000 camal haye marka tan labaadna waxaa waaye inuu militariga ayaga ee janska ku siiyaan laakiin shard waxay oo yani u yaalo inaa hal sana ayaga la shaqeeyo waa gartay marka tan labaad waxaa waa tan dhib ka jirtan marka adiga jeebkaada ka bixinaysid boqolka kun markaa bixinaysa camal dawladda waxay ka caawinaya 40% ka caawinaya oo caawinaada ku siinaysaa ha yani waa laga dhimaa lacagtaas marka su-aasha maxay tahay labada keed doortaa miya maxay diinta ka qabtaa marka yani masalan oo wadan yani ciidan oo gaala inaad baratid tayraan ha okay waa fahmay dhinaca kale low su-aashaas waxaan filayaa su-aalaan ka jawaabayaan filayaa nacam akhiyow diyuunta bunugta rabiga ma banaano dadka qaatay waa laga yaaba qool culamo fatwood inay qaateen laakiin aniga qoolka anaa i weydiisay ribadaas bangiga ilaahu bini haddee tahay in mortgage ama lagu qaato ee lacag ku saarto ilaahu 5 sana sheegaysaahi hal bil ha socota deerto ribada qaybta waqtigii lagu gudayo kuma xasishay waxay ku xasishaa ribada lacagta lagu saartay haddii hal bini lagu saarto riba qaadatay beenayna ka sheegaan 5 sana ku gudnin wax lahay ma jiro anaga baarnay ninka ugu yaraado waxaa laga yaabaa 40 sano inuu guriga ka dhamaado maxaa yeelay igi maxay ka faa'iidaan hadda 5 sano gudayso geedaan dheeraata la rabaa valuation dhaco oo dadka guryaha oo mortgage ka qaatay ribada qaatay guriga kuma qorna ayaga iyo bangiga askulu qoran laakiin dadka markay maqaayadaha yimaadaan guriga kasta ugu sheekeeyaan ummadda tahluku ku ridaan beentaasna ilaaha ku qabsan doono guriga weli ma u gadna magacooda laguma qorin ribadaasna 30 sano ka yar ma soconayso markay u yaraato 5 sano ku bixiyey iyo waxaas yaa lagugu sheekayn qofka hadduu xanuunsado hadduu oo salarigiisa isdhimo dhibaato ku dhaca lacagta waa sii kordhaysaa maxaa yeele xarbi ilaahay u banbaxday intaan aragnay dad guriga iska sii gada waa aragnay laakiin dadkay usoo libistaanoo been u sheegaan waxaa le ilahay ka cabsada ribada dadka ha ku waaninina masalada kala sheegtay oo ah shuruuday leedahay akhi shuruuday leedahay hadday tahay ijaar tamliik hadday tahay waa bannaan tahay laakiin nidaamkan socdo sida inta badan waxay sameeyaan waxay ku leeyihin 80 anaga bixinayna 20 adiga leedahay okay 20 gurigan waxaa laga baxshay 100 laga baxshay adiga marka waxaa laga rabay marka konton inaa qaadatiin ahayd haddii shirka aad tihiin konton inaa qaadatiin ama wuxuu ka faa'iiday hadda uu kuu sheego maya kuma sheegin wuxuu ku leeyahay percentage renta ku bixinaysaa 20kii aad ku darsatay 100kii oo marka laga hormarsaday iyo tan waxaa laga yaabaa in adiga aad lacag zaa'id aad bixisid walidaalika beec kastoo la galayo waxaa la rabaa in marka hore sicirkiisa la gooyo hadduu sicirkiisa hadday waqti dhib dhaco ee isbedelayo ribow noqonaya ijaarkaa bixi weyse maxaa dhacayo ma laga hadla ijaarkaa bixi weyse ijaarkaa bixi weyse waa laga hadlaa hadhow wuxuu waa ribo ku saaranaya marka hore waa ka qarana waa bixin karta waa ku dhihi karaa shaydaanka wuxuu ku leeyahay ijaarka waa iska bixi karta laakiin haddaa bixi weyse ribaa kuu bilaabanayso dad badan ay ku dhacdana waa aragna insha allah walaalka kale wuxuu leeyahay tacliimka may waa bannaan tahay akhi inaad waxa baratid labada siba waa ku baran kartaa baabulmuqaayada inuu ku yidha qofka ana lacagta kaa bixina hadhow xoogaaga isticmaala dhib ma laha waa la geli kartaa heshiiskaas macnaheed maaha mar kastoo xarbi yimaado haddii hadhow waxaa ka baqaysa waxaa waaye dowlad muslima hadhow la dagaala kaas go-aan kale leeda adaa qaadan kar go-aanka kale adaa qaadan dad badan oo xataa vietnam oo dagaalka ma ka qayb gelina yiraa jiro muslimiin aan ahayn aniga dadkaas ma dilayno go-aanka adaa qaadan karto laakiin waxbarashada waa geli kartaa dhib male qadka telefoonka halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh suuley waa su-aalaha qaban haye sheekhi
qofaa waxaa dhacday inuu bil ramadaan dhan soomin muddo 20 sano ka hor nacam qofkaas dabcan inay waajib ku tahay uu garanayay qaangaarna uu ahaa waajibay ku ahayd gadaal dambe haddeer 20 sano markay kasoo wareegtay ayuu masaladaas u baahday qaabka uu soonkaas ku gudi lahay inuu helo waxaa kaloo qabay hal su-aal oo kale ku darsan lahay dee suuragal tahay qofkii oo dhaawaca oo maxaan ku irahdaa gacantii ama ay ka duuban tahay meel ka mida jirkiisa in maxaan ku irahdaa uu weysaqaadka u baahdo markuu weyse qaato yacni meeshii waajibaadkii ka mid eed in la dhaqanaya ay qayb ka mid ee duuban tahay ayadana sidee lagu xalinaa weysadaas waa gartay waa gartay dhinaca kale low halo waa ku maqlaa halo waa ku maqlaa telefonka hadal tvga iska dhaaf sheekh usuli salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku weydiin lahaa sheekh usuli salaada qallada oo la soo dhaafay qalladaas sunnadu ma ku gudmaysaa mase qallaa loo dhiyoha waa gartay qallaa loo niyona qallo qallaa loo dhiyoha waa la qallayhaa waa la qallaynaa soonkana qallaa loo niyo asna ya qallaa loo niyonaad laakiin markuu xanuunsan yahay maxaa ku waajib soonka hadduu soomi kara may dib u dhigana markuu soo gadaal kasoo qallaynaa le markuu xanuunsan yahay ma soomayo haddowna qallay karin markaas dhibaato hadduu xanuunkiisa joogtay oo qallay karin markaas masaakiin oo quudina soonka laakiin salaada waad gudaysaa salaada qalla intaa awoodid ilaa itii rabkaaga imaanay iska soo qallay hadhowna ilaahay waa kuu jeedaa dadaalkaaga insha allah khayr allah ku siiyo baarak allah fiikum dhinaca kale alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waa ku salaam ilaah ku barakeeyo baarak allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood tan koowaad waxay tahay nin saaxiibkaa wuxuu yidhi sanad walbo waxaan isdagaalnaa uu yidhi walaaladay waxaan isku dagaalnaa waxay dhahaan niyo waxaa soo dirtaa lacag oo aabbo lagu xuso oo sanadka micnaha geel lagu qalo ma fahat waa gartay anigana wuxuu yidhi mar walbo salaad aan ka baxo aabi waa u duceeyaa marka wuxuu yidhi wax sanad la duceynaya ma jirte iga dhaafa marka ayagana waxay dhaheen haddii ood lacag soo diri karin marka imo oo kasoo qaybgal badarka iyo raashinka waxaan isticmaal waa gartay asagana marka wuu kasoo horjeedaa taasna micnaha waxay dhaheen haddii aabbaha ad xusi waaso ama lacag soo diri waaso caas waalidiin baa noqonaysaa marka taasna inaa iga jaalibixisaan rabay midda kalena aan la yaaba waxay tahay tusaale ahaan qabuurta oo kale markaan dadka hadda xilligan jiran dal kenyan ku nool aniga markay meelaha qabuurada tagaan mar kaleet waxaa arkaysaa dad iska sheekeynaya iska faraxsan qiiro iyo murugba aan ka muuqanaynin kadib meeshii bariis la cunaya cuntaa la isku cunayaa qof oo micnaha qiiro iyo kurbad ay ka muuqato maba arkaysidba marka iyadana maxaa keenaya qalbigaa saas u adkaada micnaha aan rabay inaan ku weydiiyo labada su-aal baarak allah fiik dhaawac su-aalana ka jawaabay marka hore wiilka hore su-aasha hore wuxuu leeyahay 20 sano ayuu soomin soo qallaynaya waa soo qallaynaya sadaqana waa bixinayaa haddii uu asagoo caafimaad qaba uu soomin oo soon kale ku gaaray oo sanad kale ku gaaray intuu awoodo masaakiin wax ka bixiyo laakiin qallada mar kasta ha soo qalleeya tii rabbi ilaa uga imaanayso qalladaas ka wado ha qiyaaso intay tahay 20 sano waa 20 min 30 waay 20 min 30 maalmood isku dhufo intaas maalina kuu soo baxayso marka meel ha ku qorto isniin kasta khamiis kasta soo awoodo hadduu weeg isku xiri karo wuxuu soo awoodo iska qalleey maxaa qalladaas oo lagu leeyahay soonka gabdhaha xataa cudurka sharciga oo caadada ku dhacdo waxaa leeyahay soo qalleeyaan soonka waxaa ku soo hartay sidoo kale wuxuu leeyahay ninka kab saaran yahay ama feesho saaran soo weyse qaadanaya nacam inta kale ku weyse qaadanaya feeshada korkeedu masaxaya gacantiisa qoyan oo macnaha biyo inuu ku filo ka filkiyo ayuu saas u kormarinaya hadday isha tahay saas uu bisha feeshada korkeedii ayuu marinaya hadday kab ay tahay kabka korkiisa marinaya insha allah nacam ninkan su-aasha kale ugu dambeysay wuxuu leeyahay laba su-aal qaba wuxuu leeyahay walaalihi waxay kula dagaalansan xuska masalada xuska ikhwaani xuska asalkeeda markaa fiirisid maxaa keena sanad in la xuso horta waxaa u ogaataan
dadka Soomaali dad masaakiin iska ahaayeen marka waxaa moodaa faqri iyo wax la'aan ayaa jirtay marka odayga waxba loo sadaqay jirin waalidka sanadka markii la gaaro waxa la leeyahay war loo bixiyo laakiin hadda alxamdulillah hadda adduunku waa furmay nicmo la leeyahay marka waalidiinta ayaa sanad laga dhigin sanad ka badan ka hor u baahan yihiin ilaa sanadka kale wuxuu kusii sugu u baahan yahay sadaqada joogta looga dhigo ducada joogta looga dhigo kaas wax la isku dagaalan maaha laa idinkan walaalkiin ha qasbin adna walaalaha ha qasbin haddaa sadaq u niyeysatid aabbaha abaxsatid xataa xuska haddaa u niyeysatid wax dembi ku dhicin waxaa dembi ku dhacda mala masalada xuska ma aha kabiiro weyn ma aha oo qofka hadduu xuso dembi ku dhacay ma aha wala bidcadeed ma waa bidca idaafiyo mukhtalif fiiha wey haddii xataa bidca tahay marka curfi ma naqan kartaa dhaqan naqan kartaa dadkaas inay caadaysteen marka caadadaas waxaan rabnaa in la baabi'iyo laakiin inaad arrin diin laysku khalaaf maaha maxaa yeelay islaamnimaa niga dhexeyso rixmaa niga dhexeey walaalaa tihiin adigina walaalaha saas u goyso maaha waxaan ku fudud midkiin labada dhinacna midka kale u dul qaato adiga haddaad diin sheeganaysa diin baratay sadaqa u niyeysabo inama alacmaalu biniyaat xusaa u niyeysan laakiin maanta aabahay maa wax loo bixin ahaa anna waa bixinaa dheh maxay kaa dhibtay wixii kaa dhibays male marka diinna kama baxaysid oo gaalna maku naqanaysid saas faasiqna kuma naqanaysid marka halaysku dhimriyo arrintaas ayaa wax weyn laga dhigin nacam masalada caaqna ma taal in la yidhaha kuwaasna in dhahaan waalidka caasa ku naqanaysaa maaha nacam masalada kale yarka uu sheegay waa masale khatiir wey akhi meel kastay ka jirtaa london ay ka jirtaa uk maraykankay ka jirtaa qubuurta dadka waxay ka dhigteen tanazuh ay ka dhigteen inay iskaga tagaan iska sheekeystaan balse nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri alaa fazuuruuha wuxuu leeyahay qubuurtu hata maxaa dhacay fa innaha tudakkirukum alaakhira waxa loo taga waxay tahay meeshaasna aad gelaysid inaa xasuusatid oo aad maanta dhan la murgootid meeshaas ninka ku jiro arkaysa qubuurahaas dadka ku duugan walaalay lahaayeen reeray lahaayeen xaasay lahaayeen saasay u galeen adiga saasaa la mid tahay mana ogid xataa waqtigaas oo galaysid marka kasoo dhaqaaqad in lagugu soo celi doona laga yaaba adigoo lagu wado marka qofka inuu u diyaar garoow waa marka ha laga ilaaliyo qubuuraha sheekada ha laga ilaaliyo qubuuraha laga ilaaliyo farxadda iyo qosolka ha laga ilaaliyo mushkiladin hayso waxay tahay dadka isma booqdaan marka maadaama isbuuqanin xagga isku arkaayo maanta dhan waa sheekeen war dadka ishas booqdaan guryaha iskugu tagaan dadka xanuunsan hala booqdo waxyaaba dhaqanka xun ay kamid tahay nin jirin oo waqti soo booqanaynin oo lacag isku daaweey aan la siinaynin oo markuu dhinto neef geel loo qalaayo dhaqan xun waa markii diin laga soo tagaba dhaqankaas diin ahaan ma wanaagsana marka si loo gooyno waa adag tahay mar kasta laakiin isku naseexayno kan wax u naseexayna ha u tuuro dadku u naseexaynayo qolada kale naseexada walaalkood u sheegayay si ayar hadduu ugu sheega ku naseexda qaataan laakiin dagaal waa qaldan tahay anaa saxan iyo anaa jannada galay aad naarta gali ilaahay cidda naarta galaysa cidda jannada galayso ilaahay waxaan ka baryay dhammaanteen ilaahay kuwa jannada ku kulmi allah naga dhigo su-aashan kale ayaa qabanaya halow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa gabar soomaaliyeed oo waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su'aalood tan koowaad midda koowaada waxay tahay